labaatan sanadood ka hor 19 bishii saddexaad ee sanadkii 2003 madaxweynihii Mareykanka George W. Bush ayaa amray in ciidanka Mareykanku ku duulo dalka Ciraaq. Bush iyo saraakiishiisa sare ayaa marar badan u sheegay bulshada Mareykanka in Saddam Hussein uu ku hubaysan yahay hubka waxgumaada iyo inuu xiriir la leeyahay ururka Al-Qaacida. Sheegashooyinkaasi waxay keeneen in badi bulshada Mareykanku ay rumaystaan in Saddam uu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday daaraha Mareykanka 11 bishii 9aad 2001 sanado kadib weerarkaasi bulshada Mareykanku 3 meelood 2 meel ayaa sheegay in hogaamiyaha Ciraaq uu caawiyay argixisada sida ay tabsii xarunta cilmi baadhista ee dalka Mareykanka ugu weyn Iliada Pew. marka hore daawadeer ku soo dhawaada barnaamijkeena warwareyn oo ay ku soo tabi doono isla markaana ay kula wadaagi doono wareysi dheer oo uu bixiyay ninkii wareystay Saddam Hussein isla markaana wareysanayay muddo sanada. wareysigan inta uu socday waxay ku dhex doonaa su'aalo iyo jawaabo dhaxmaray wariyihii iyo madaxii wakiilkii gaarka FBI ee wareysiga luqadda Carabiga ku bixiyay muddada sanadka ka soo itijibinayay isla markaana marba qayb ka soo butaacinayay xogtii Saddam Hussein. inta barnaamijkan ku guda jirtaan waxaad daawan doontaan sheekooyin su'aal celis ah iyo sidoo kale waxyaalo badan oo ka yaabiya oo ku saabsan wax dhexmaray qof asalkiisu Carab yahay iyo hogaamiyaha Carbeed ee ugu awoodda badnaa oo markaas maxbuus u ahaa cadowgiisii ugu weynaa oo Mareykanka ah. inkastoo aysan jirin waqtigaasi cadeymo lagu qanci karo oo arrintan ku saabsan sidoo kalena ma aysan jirin cadeymo ku saabsanaa in Saddam uu haysto hubka sida waqtigan wax xukumaa Israa'iisha Mareykanku markaas ay ku eedeeyeen kadib duulaankii Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadeen dalka Ciraaq waxay toddobaadyo gudahood kaga adkaadeen ciidamadii dalka Ciraaq balse waxaa bilowday kacdoon ka dhana Mareykanka iyo xulufadiisa kaas oo muddo sanado badan socday isla markaana dhagta dhiigga loogu daray ciidamo badan. taariikhdu markii ay 13 December 2003 ciidamadii howlgalka gaarka ah Mareykanku waxay heleen Saddam Hussein oo la sheegay inuu ku dhuumanayay god aad u yar oo ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq. FBI da ayaa u dooratay kolkaasi George Pirro oo ahaa wakiil gaar ah oo ka soo jeeda gasal ahaan dalka Lebanon in uu su'aalo weydiiyo Saddam. Pirro waxa uu ahaa nin shaqadiisa aad daacad ugu ahaa isagoo si joogta u imaan jiray goobta jimicsiga FBI da ku taala bartamaha magaalada Washington DC saacadu markay ahayd 6 subaxnimo si uu u sameeyo jimicsigiisa ka hor inta uusan bilaabin shaqadiisa rasmiga ah 7 subaxnimo kaasoo xafiiskiisa ay ka buuxeen buugag ku saabsanaa taariikhda bariga dhexe iyo waxyaalo la xiriira ayuu ka shaqeey jiray markaa dabcan xafiiskaasi. waqtigaasi FBI du waxay ku jirtay xaalad aad u adag oo cadaadis sare leh waxay u baahdeen inay xaqiiqda ku saabsan inay Ciraaq haysato hubka wax gumaada iyo xiriirka ay la leedahay Al-Qaacida ay ka ogaadaan Saddam Hussein. isagoo intaas ka horna agaasimaha CIA da dalka Mareykanka George Tenet ee xilligaasi uu si kalsooni leh ugu xaqiijiyay madaxweynaha dalka Mareykanka Bush in Saddam Hussein uu haysto hubka wax gumaada taasoo uu ku tilmaamay inaysan shaki ku jirin waana waxyaalihii keenay dagaalka inuu dhaco. dagaalka Ciraaq waxaa laga iibiyay bulshada dalka Mareykanka inuu yahay wax iska fudud laakiinse taa bedelkeeda boqolaal askari oo Mareykan ayaa lagu dilay. markii Ciraaq Saddam Hussein laga xidhayayna dhibaato aad u weyn ayaa timid CIA ayaa markii ugu horeysay su'aal weydiisay Saddam Hussein. Pirro oo ahaa wakiilka gaarka ah ee loo xilsaaray Saddam wuxuu wareystay Saddam Hussein wuxuuna wareysanayay in ka badan muddo 7 bilood ah iyadoo oo sanad ku dhawaadna markii arrintu gaadhay. waxaa gabi ahaanba ku wareysanayay qol aan loo ogolayn in cid kale ay timaado. natiijada wareysigaasi waxa uu Pirro ka ogaaday in aanu Saddam Hussein uusan jirin wax gumaada oo Ciraaq haysatay iyo in uusan Saddam Osama bin Laden hogaamiyaha Al-Qaacida xiriir la lahayn. wadahadaladii dhexmaray labada nin waa Pirro iyo Saddam Hussein ayaa lagu xaqiijiyay in dagaalka Ciraaq uu ahaa dambi iyo khalad asalkiisu ka yimid dawladda Mareykanka intii lagu guda jiray qarnigii 12aad bilowgiisii iyo inuu ahaa dagaal lagu dagaalamo mala awaal beena iska horimaado ay ku dhinteen kumanaan kun oo askari iyo sidoo kale boqolaal kun oo qof oo shacabka Ciraaqiyiinta burburiyay Ciraaq. dagaalku waxa kale oo dhaawacay maqaamka Mareykanku ku lahaa caalamka iyo kalsoonida dawladda Mareykanku ay ku dhaxlahay muwaadiniinteeda. waxa kale oo ay ogaadeen Mareykanku in guuleystaha dhabta ee dagaalkaasi uu ahaa dalka Iran. Pirro wuxuu u dalacay jagooyin sare oo FBI da kadib wareysi uu Saddam Hussein la yeeshay ka gadaal wuxuu shaqada ka fadhiistay bishii Luulyo ee sanadkii 2022 isagoo ahaa waqtigaasi wakiilkii gaarka ah ee mas'uulka ka ahaa xafiiska goobta Miami ee dalka Mareykanka FBI. hadda waxa uu qorayaa wakiilkaasi leeyahay Mr. Pirro book uu ku saabsan su'aalo weydiintii dheereed ee uu la yeelanayay muddada sanadka Saddam Hussein. markii ay soo dhawaatay sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay
markii uu dagaalku bilowday dalka Ciraaq waxa uu wariye ka tirsan CNN oo lagu magacaabo Peter Bergen waraysi ka qaaday sarkaalka Bureau arrintii ku saabsaneed su'aalo weydiintii ugu guusha badneed ee taariikhda FBI-da iyo sida ay dadku u arkaan gariirkii ka dhashay duulaankii Mareykanku ku qaaday dalka Ciraaq oo ilaa maanta la dareemayo saamayntiisa. haddaba waraysiga ayaa u dhacay sida tan isla markaana nuxurka waraysiga oo aad iyo aad u ballaaran waxaan rajaynayaa in aad kala fahantaan marka hore labada magaca koobaad waxa la yiraahdaa Peter Bergen waa wariyaha CNN ee arrinta waraystay. CNN-ku waxay gabi ahaanba ku waraysteen qoraal isla markaana sidii qoraalka ahayd ayaan idinku soo guurinaya idinku soo turjumaya. George Bureau oo aan hadhowta isticmaali doono Bureau iyo Bergen labada nin kala Bureau طبعا waa ninka wax waraysanaya markastoo aad Bureau maqasho waa inaad ogaataa inuu yahay sarkaalkii Saddam sida tooska wax u weydiinayay halka Bergen uu yahay wariyaha su'aalaha gamay. Peter Bergen ayaa su'aashiisa ugu horeeyay wuxuu ku bilaabay sidatan ii sheeg sida ay arrintani ku bilaabatay. George Bureau waxa uu ku jawaabay waxa la soo wacay habeenkii Christmaska ee cibaadada ama ciida Kirishtaanka abaaro 5 galabnimo waxa ii yeeray sarkaal sare oo ka tirsan qaybta la dagaalanka argagixisada wuxuuna igu wargeliyay in hadda la ii doortay in aan su'aal weydiiyo Saddam Hussein anigoo ku hadlaya magaca FBI. Bergen maxay ahayd falcelintaadu? Bureau markii hore argagax bay ahayd falcelinteedu daacad baan ahaan doonaa waxay ahayd erayadii iga soo yeeray waxay ahayd wax laga naxo in aan ogaado in aan su'aal weydiin doono qof ku jiray masraxa adduunka sanado badan waxay u muuqatay mas'uuliyad muhiim ah oo aan wakiil uga ahay FBI. waxaan tagay meherada ama mukhayada leedahay Barnes & Noble oo aan ka soo iibsaday 2 buug oo ku saabsan Saddam Hussein si aan u bilaabo horumarinta fahamkayga ku saabsan qofka uu yahay iyo dhammaan waxyaabaha muhiimka ah oo ay ka mid tahay horumarinta xeeladaha su'aalaha. waxaan mar hore tagay Ciraaq waxaana ka mid ahaa qaybtii ugu horeysay ee shaqaalaha FBI-da la geeyo waxaan bilaabay waqtigaasi inaan horumariyo fahamka aan ka qabo dhaqanka Ciraaq iyo xisbigii Ba'ath ee uu hogaaminayay Saddam Hussein. Saddam waxa uu dhashay 28 bishii Abriil sanadkii 1937 waxa uu ku dhashay tuulo yar oo la oran jiray Al-Awj oo ka tirsan gobolka Tikrit. wuxuu lahaa caruurnimo aad u adag maadaama uusan lahayn aabe. hooyadiis waxay guursatay adeerkiis oo dumaalay kaasoo noqday aabihiis. Saddam iyo qoyskiisu markii uu soo koreeyay waxay ahaayeen dad aad sabool ah markii horena waxa uu awoodi waayeen in uu dugsi galo ama dugsi u diraan laakiin caruurnimadaasi ayaa qaabaysay in Saddam uu noqdo nin adag. caruurnimadiisii waxay ku beertay rabitaan qoto dheer oo ah inuu qof walba ku cadeeyo khaladkiisa oo aanu cidna ku kalsoonaan balse uu ku tiirsanaado dareenkiisa iyo fikirkiisa. isagoo dhalinyaro ah wuxuu ku biiray xisbigii Ba'ath waxaana ka mid ahaa hawlihiisa ugu horeeyay in uu dilo ra'iisul wasaarihii xilligaas. isku dayga dilkaasi ayaa waxa uu ahaa mid fashilmay. Saddam waxaa lagu qasbay inuu ka cararo Ciraaq laakiin markii uu soo laabtay waxaa loo arkayay nin adag. adaygaasi wuxuu noqday muuqaal uu kor u qaadi doona inta uu ku guda jiro noloshiisa. kulankii ugu horeeyay ee aan la yeesho Saddam 30 ilbiriqsi gudahood ayuu wuxuu iga ogaaday 2 arrimood oo aniga igu saabsanaa. waxaan u sheegay in magacaygu yahay George Bureau oo aan anigu mas'uul ka ahay. isla markiiba waxa uu igu yiri waxa aad tahay Lubnaani. waxaan u sheegay in waalidkay inay Lubnaaniyiin yihiin kadibna wuxuu igu yiri waxa tahay Masiix. waxaan weydiiyay inay taasi dhibaato tahay wuxuu igu yiri gabi ahaanba maya wuxuu jeclaa dadka Lubnaan ayaa jeclaa isaga laftiisa. kadib waxaan dhahay waa hagaag si wanaagsan ayaan u heshiin doonaa. Saddam wuxuu ahaa muslim sunni ah halka Ciraaqiyiin badankoodu ay yihiin muslimiin Shiica ah. Bergen ayaa markan su'aasha ku soo noqday intee in leeg ayaad Saddam la joogtay iyo dabcan waxaad kula xiriiraysaa luqadda Carabiga intaad wada hadlaysaan oo dhan soo sax ma. Bureau qiyaastii 7 bilood ayaan wada joognay. markii hore waxaan arkay jiray isaga subaxdii waxaan u turjumi jiray shaqaalihiisa caafimaadka kadibna su'aalaha rasmiga waxay ahaayeen dhowr saacadood hal ama 2 jeer toddobaadkii. waqti kadib waxaan bilaabay inaan isaga iyo aniga oo kaliya waqti wada qaadano sababtoo ah si fiican ayaan isku fahamnay. xiriirkayaguna wuu fududaaday. waxaan gaarsiiyay waqti 5 ilaa 7 saacadood maalin kasta aniga iyo isaga oo kaliya dhowr saacadood oo subaxii ah dhowr saacadood oo galabtii ah iyo hal ama 2 fadhi oo toddobaadkii ah oo su'aalo rasmi ah. wax walba waanu ka wada hadalnay gaar ahaan 2 bilood ee ugu horeeyay. hadafkaygu wuxuu ahaa kaliya in aan ka hadal siiyo. waxaan rabay inaan ogaado waxa uu nolosha ku qiimeeyo iyo waxa uu jecel yahay.
waxa uu necab yahay iyo habfikirkiisa. markaa waxaan ka hadalnay wax walba oo laga soo bilaabo taariikhda, fanka, ciyaaraha ilaa siyaasadda. waxaan ka hadli jirnay waxyaalo aan ogaa in uusan dhib ku qabin ka hadalkooda iyo waxyaabo uu ka labalabeeyo in uu ka hadlo labadaba. dadku waxay i weydiinayaan su'aalihii ugu horreeyay ee aan weydiiyo Saddam, iyaga oo leh mawduuca aad ka wada hadasheen waa maxay. inta badan dooda koobaad waxay ku saabsaneed sheeko faneedkiisii la daabacay ama buuggiisii ahaa weelada ama waxa loo yaqaan Nobelka. sababtoo ah waxaan ogaa inuusan taas ka been sheegaynin, waana meelahan ka bilaabay. waxaan mar horeba sii baaray oo bartay sheeko faneedkaas, wuxuuna sheegay inuu buuggaasi akhriyay. Bergen ma waxay ahayd sheeko faneed wanaagsan buugga uu qoray? maya, waxay ahayd sheeko aad u xun, Sabiiba iyo Boqorka. waa buuggii Saddam Hussein ee sheeko faneedka ahayd ama sheekooyinka loo yaqaan Nobelka ee sheekada markaasi loo yaqaan sheekada ama sheeko xariirta waxa loo yaqaan. muxuu ahaa ayuu yidhi Bergen shirqoolka ku jiray markaa sheeko faneedka. Bergen wariyaha ayaa magaciisa wuxuuna weydiiyey Biro ayaa yidhi Sabiiba waxay ahayd naag Carbeed oo qurux badan, waxaana guursaday oday aad u xun. kadib boqor aad u qurux badan isla markaana soo jiidasho leh ayaa Sabiiba ka soo samatay bixiyay dhibaatadii haysatay, waxayna ku noolaadeen kadib farxad. dabcan Sabiiba waxay matalaysay Ciraaq, odayguna wuxuu ahaa ama laga wadaa Mareykanka. wuxuu yidhi ogoobay marka waad qiyaasi kartaa qofka boqorku ahaa waa Saddam laftiisa. ayuu yidhi shayga ugu muhiimsan ee kor uu qaadi karaa natiijada su'aalaha waa khibradda aad u leedahay mawduuca aad weydiinayso. aad bay u adag tahay in been loo sheego khabiirka mawduuca, weliba marka aad taas ku darto istiraatiijiyad iyo hab wanaagsan oo aad su'aalaha u weydiinayso. waxaad runtii kordhinaysaa suurtagalnimada inaad ku guulaysato su'aalaha. wakiil FBI ahaan iyo weliba gaar ahaan su'aal weydiin khaasa waan ogaa in aan doonayo inaan wax walba ka ogaado Saddam, sababtoo ah iswaafaq la'aantu waa calaamado khiyaana. waxaan rabay inaan fahmo Saddam oo aan Saddam u barto sida naftiisa uu u yaqaano oo kale. tusaale ahaan go'aankii Saddam ee uu ku duulay Kuwait 1990 waxaan waraystay dhammaan maxaabiistii kale ee xilalka sare ka hayn jirtay xukuumaddiisa. si gaar ah ayaan oga hadalay go'aankii Kuwait in lagu duulo. waxaana jiray markaas kulan dhacay oo xasaasi ah oo Saddam uu ku go'aansanayay inuu ku duulo Kuwait. waan ogaa kadibna macluumaadka oo dhan oo waxaan xataa aan u sheegay Saddam Hussein qof walba meesha uu fadhiyay, habeenkii go'aanku dhacayay, qorigiisa meesha uu dhigtay, suunka uu xidhnaa iyo dhammaan kulankaas raggii afkaaraha ka dhiibtay anoo markaasi iska dhigaya inaan ahaa 100% kalsoonina ku siinaya inaan nin wax og aan ahay uusan been ii sheegi karayn. haddaba marka aan la hadlayo waxaan soo qaadan jiray ayuu yidhi tafaasiishaas yaryar si aan u xoojiyo aqoonta aan u leeyahay iyo sida ay u adag tahay in uu xaqiiqda ka been sheego. waxay culays badan saartaa maxbuuska marka uu la kulmo khabiir ku takhasusay mawduuca ee uu ka hadlayo, sababtoo ah waa inuu aad uga fikiro si uu u alifo nooc kasta oo been ah oo kanshe u sii karta inay guulaysato ama uu ku guulaysto. Bergen waqtigaasi si aydu ayaduna waxay wadii barnaamijkeeda su'aalaha khasabka ah. ma garanaysay barnaamijka su'aalaha barbar socday mise mar dambe ayaad ka war heshay aragtida aad ka qabto midaas? su-aashan weydiinaya wariyaha waxaa laga wadaa isla markaana loo fasiri karaa in FBI-du ay su'aalo jirdil ku jiraan ay ku waday maxaabiista dadka kale ay wareysanayso ee ka tirsanaa madaxda Ciraaq. Biro oo FBI-da ah wuxuu yiri mar dambe ayaan ka war helay. dabcan weligay ma isticmaalin farsamooyinka cadaadiska ah. waxay ka soo horjeedaa dastuurka Mareykanka, sidoo kale waxay ka soo horjeedaa siyaasadda FBI-da, waxayna ka soo horjeedaa qiyamka asaasiga ah ee FBI-da. marka aniga ahaan weligay run ahaantii ma dooran qaabkaas, sababtoo ah weligay maba isticmaalin, mana garanayo sida markaasi loo isticmaalo ama loo adeegsado, mana rabo inaan adeegsado. waxaan dareemayaa inay lid ku tahay cidda aan nahay dal ahaan iyo waxaan matalo. maxaa faa'iido ii ahayd aniga? wuxuu ii sheegay kaliya agaasimaha FBI-da qaybta la dagaalanka argagixisadu u diyaar garow inaad sanad la qaadato Saddam Hussein. waa bilowgii hore ee shaqada la direeyay. marka ma ahayn inaan ku degdego hawsha. qiimaha xogta sirdoon ee aan ka rabnay Saddam ma ahayn mid muddo ku qiimo dhacaysa, waxay ahayd mid qiimo leh. haddaanu helno maalinta koobaad ee 365 maalmood ee sanadka
waxay muhiimad u ahayd helitaanka xogta iyo maalinta u dambaysa ee 365 macnaha maalinta koobaad ee sanadka shaqada la diray iyo maalinta ugu dambaysa xogta in la helo isku mid ayay ahayd wuxuu yiri si kale way ka duwan tahay marka aad su'aal weydiinayso argixisada oo ay ku jirto hanjabaad ama shirqool oo waqtigu ku hayo ujeedaduna ay tahay inaad ka hortagto weerar dhacay iyo dabcan markaad wareysanayso qof hab maamuuskan oo kale leh oo mas'uul waxaan rabay inaan ogaano waxa ku jiray Saddam madaxiisa waxayna ahayd mid istiraatiiji ah waxayna muhiimadaydu ahayd in uu nala wadaago xogahaas marka saamaynta istiraatiijiyadda wax ku oolka oo su'aalo weydiineed oo fog ayaa runtii ahayd furaha aan ku heli karno xogahaas Bergen kadib weerarkii Sebtembar 11 ee daaraha Mareykanka dad badan oo Mareykan ah ayaa rumaystaa in Saddam uu shakhsi ahaan ku lug lahaa weerarkaas ma kala hadlay arintaasi Piro sida aad xasuusato koor duulaanka Ciraaq waxaa jiray saraakiil ka tirsan waaxda difaaca oo sheegay in Ciraaq ay ku lig leedahay howlgalkii 11 Sebtembar 2001 sida darteed waa inaan go'aan ka gaadhno inay taasi xaqiiq tahay iyo in kale taasi waxay ahayd mudnaanteeda labaad ee ugu sareysa midkeena ugu horeeyay wuxuu ahaa barnaamijka hubka sida daran wax u gumaada in Ciraaq haysatay mid labaadna waxay ahayd heerka u gaarsiisan yahay xiriirka ka dhaxeeyay al-Qaacida iyo Ciraaq Saddam wuxuu ii sheegay inaanu jeclayn Osama bin Laden isla markaana aanu aaminsanayn fikirka al-Qaacida sababtoo ah waxay ujeedadu ahayd in ay abuurto dawlad islaami ah al-Qaacida oo ka dhalata dalalka Carabta sida daraadeed Saddam ma lahayn wax rabitaan ah inuu xukunka ku wareejiyo ama cid kale wax uga tanaasulo Saddam wuxuu ku jeesteesi jiray Osama bin Laden isagoo leh runtii iskama aamini kartid qof garka sidaas oo kale ah leh ayuu igu yiri waxaan la hadlay maxaabiis kale oo Ciraaqiyiin ah oo xaqiijiyay in taliska Saddam Hussein uusan si dhow ula shaqeyn al-Qaacida waxa aan xiriirkooda ku tilmaami karaa inay iska warhayn ahaayeen balse aanay si dhow u wada shaqeynin Saddam waxa uu muujiyay xiisaha uu qabo inuu wax ka barto dhaqdhaqaaqyada al-Qaacida iyo in ay suurtagal tahay inuu ka faa'iideysto tani waxay muujinaysaa in Saddam uu diyaar u ahaa inuu isticmaalo agab kasta oo la heli karo si uu gaaro yoolkiisa oo ay ku jirto inuu farageliyo kooxaha xaq jirka ah sida al-Qaacida oo kale haddaba qaybta koobaad ee waraysiga dheer ee laga qaaday ninkii loo jeeday George Piro oo isagu ahaa oo qaybsamihii khaaska ahaa hay'adda FBI ee dalka Mareykanka uu ku waraystay muddada 7 bilood Saddam Hussein inta ay noo joogto qaybta labaad ee barnaamijka waxaad ku daawan doontaan su'aalo kale oo tirabeelo Saddam Hussein la weydiiyay ila waxa idin dhex geey doona kolkii Saddam Hussein xariga qoorta loo galiyay sidii uu dareemay Mr Piro iyo waxyaalaha isku barteen markay wax wada cuneen iyo arrimo kale